dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan uga hadli doono xaaladaha kanan ay ka jira dalka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya. Studiyaha koowaad ee shabakada warbaahinta Washaqa Media Network ee magaalada Nottingham dalka Ingiriiska waxa inoogu marti ah ugaas Cabdinaasir Ismaaciil Weydow ugaaska beesha Qubays Dir. waxana waraysiga ugaas Cabdinaasir Ismaaciil Weydow uu uga hadli doonaa marxaladaha adag ee ka jira koonfurta dalka Soomaaliya. haatana aan idin kala dhaxbaxo sheekadii ina dhaxmartay aniga iyo ugaas Cabdinaasir Ismaaciil Weydow. mudane ugaas Cabdinaasir Ismaaciil Weydow waxaad ku soo dhawaataa shabakada warbaahinta Washaqa Media Network. ku dhawahay Maxamed Aar aad iyo aad kugu mahadcelinayaa fursadan qaaliga ah oo caawaysiisay runtii website-ka ama idaacadda Washaqana waxaan u rajeynayaa idaacad horumar gaarto oo ummadda Soomaaliyeed danaheeda meel kasta gaarsiisa inay noqoto dadaalka aad haysana aad baan kugu taageerayaa waad maasantahay walaal. sida aan la wada socono waxa dalkeenii ka socda dagaalo gaar ahaan koonfurta Soomaaliya. mudane ugaas Cabdinaasir Weydow adoo mahadsan su'aasha ugu horeysa oo aan ku weydiinayaa waxay tahay sidoo aragtaa muddada 3 sano ah ay xildhibaanada baarlamaanka gobol gaarka Soomaaliya ay waqtiga dheeriga ah ay ugu darsadeen. aad baad u mahadsantahay mudane Maxamed Aar. walaal waxaan u arkaa runtii saad la socotaba baarlamaankan dhisidiisa wuxuu qaatay 3 sano ilaa 4 sano oo Imbagati Eldoret inta la fadhiyay 3 sano waxay dhashay baarlamaankan in la keeno oo dib lagu soo waxeeyay 3 sano qolo kasta xildhibaan matala ayay soo dooratay. marka anigu waxaan u arkaa run ahaantii haddii maanta la yiraahdo kala taga oo baarlamaankii ama hay'adii wadanka oo caalamka laga intiraafsanaa aysan jirin in ay dhibaato ama caqabad meeshaas ay ka imaan karto oo haddana 3 sano iyo 5 sano kale in ama Nairobi la fadhiyo ama Djibouti la fadhiyo ama Addis Ababa la fadhiyo ay noqonayso. marka waxaan oran lahaa jidkii dheeraa oo la soo maray dib yaan loogu noqonine ha la daayo hay'adan hadda jirto oo isuk ummadda mataqaanaa magaceedii iyo mansabkeedii inkastoo hadda ay wax qabasho jirin laakiin magacii bay hayaano in la daayo ayaan qabaa waayo wax bedelaya marka haddaysan jirin in ay ayagii hadda ay tagaan oo haddana 2 sano kala meel la fadhiyo hadee Soomaali nasiib darrada haysataa ayay qayb ka noqonaysaa. marka waxaan ku talinayaa mar kale dadka dacaayadaadka iyo waxyaalaha bixinayo war waxani wax lagu bedelo ma haysataa. saad la socotaba hadda waxaan ka shalaayeynaa dawladdii Maxamed Siyaad Barre ayaan leenahay haddii saar inay dhacayso aanu maleynayno maana taabaneen war haddii shalayga markasta inuu nagu soo noqdo ma fiicne hala daayo hay'adan 5 sano dhisideeda ay nagu qaadatay. mudane ugaas soo kama haysan haboon lahayn golaha shacabku in doorasho cusub lagu soo doorto inta ay ku istooran lahaayeen. la la socotaba dalkii nabadgelyo ma jirto dagaal baa socdo dagaal aad u xun oo ahli ayaa socdo dagaalka oo ma aragtay lagu guuleysanin oo dawladii aysan goboladii ama caasimadii aysan safiican aysan ugu talin oo martigelin dadkii iskugu yeerto oo ma aragtay aysan gaarin hadda xaalad waxa lagu jiraa dagaal baa lagu jiraa dagaalkaas ilaa ma lagu guuleysto oo dawladda hadafka ay leedahay nimankani ku soo duulay wadanka ilaa laga qabto maanta kala xulasho iyo ma gaari karaan
haddii maanta ay ahaan lahayd oo dagaal jiri lahayn waa oran lahayn in mataqaanaa si degdeg ah isku yeeray laakiin dawladda ama baarlamaanku markay ku guuleysato oo kumeel gaarkaan laga baxo hadee inaan dalkaanagi fariisano oo gogol dhigano wixii khaldan ama wixii dhameystir ama hadda baarlamaanku waxa lagu dacayay dad badan oo aqoon lahayn ku jira wixii aan aqoon lahayn meeshaasi ay ku hari doonaan laakiin anigu ka oday dhaqameed ahaan waxaan ka soo horjeedaa in waxa hadda jira in la baabi'iyo oo meel cid la soo istaago hadana dib loo laabto taasaan ka soo horjeedaa su-aasheedii xigta oo aan ku weydiinayo mudane ugaas waxay tahay in waqti yar kadib xilligii ay xildhibaanadu ay ku darsadeen 3 sano in dhanka kale dawladuna ay sidoo kale waqtigii dheeri ah ay ku darsatay maxaad ka dhihi lahayd waaba ku qasban yihiin waayo dagaal baa socda saa horeba kugu sheegay haddii hadda yiraahdaan anaga dawladii sanadkii uu dhamaaday ama waqtigii uu dhamaaday waan tagaynaa ama meesha waa ka tagnay waan banaynaa hadday yiraahdaan wax lagu bedela lama hayo taas ayaa kalifaysa in hay'adaha dawladda qayb kasta noqoto ama baarlamaan ha noqoto ama golihii wasiirada ha noqoto ama garsoorkiiba ha noqoto in ay wadankii ay wax ka jiraan taas baa kalifayso wayna ku qasban yihiin in ilaa ma ay ma aragtay hadafka la leeyahay laga gaarayo in ay dawladda jirto ay shaqeyso waa laga maarmaan mid ayada arrimahan dacayaadka oo idaacadaha ka maqliyo baarlamaanka korsaday wasiirada korsaday waxba korsaday la leeyahay laga daayo maanta dalkii difaac buu u baahan yahay dadnimadii iyo Soomaalinimadii way si baabaaysaa in nidaamkani hadda jiro aqoonsigan aan haysano in la garab galo oo dawladdaasi lala shaqeeyo oo nin walba uu qaato tuutaha uu qaato oo ma aragtay dalkii la difaaco oo kuwa banaanka ka hadlay ay gurihii tagaan ee dalkii la difaaca taas baan aniga ka codsanaya markii difaacaas inoo dhamaadana geed hoostiisan fariisanayna insha Allah talada markaas aan gaarayna ugaas Cabdinaasir Weydo waxaad ka mid tahay hogaamiyaha dhaqameedyada beelaha Soomaaliyeed sidoo aragtaa khilaafka xoogan ee u dhaxeeya madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Sheekh Shariif iyo gudoomiyaha golaha baarlamaanka Shariif Sheekh Xasan maxamed aad baad u mahadsan tahay hadee labada Shariif runtii ayagoo saaxiibo oo wada socdo ay noo yimaadeen aan ingiriiska ku soo dhaweynay meel kasta tageen waxaan xasuustaa ka shakhsiyan markii la yiraahdo in uu madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo Mareykanka soo joogo khudbad uu akhrinay uu yiri aniga ayaa akhrin li weydiinaya Shariif Xasan Sheekh Aadan nin saadiqa oo aamina inuu yahay Soomaaliya hantidiina iyo ku aamina mar uu ahaa wasiirka maaliyadda saaxiibtinimo weyn ayaa runtii ka dhaxaysay waxaan hadda soo baxay isla qabsiga iyo khilaafkan soo baxayna de waxaan anigu u aaneynayaa in beesha caalamka ama khaasatan dawladdan Itoobiya ay faraha kula jirto waana runtii garaad xumo weeye gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan baaq baan u farayaa hadee isla qabsi iyo khilaaf tiidi Cabdullaahi Yuusuf iyo ariga isku qabateen Nuur Cadde iyo mataqaana iyo Cali Geedi iyo dib kii ay noogu filnaado oday Soomaaliyeed baa tahay nin weyn baa tahay nin miisaan ku leh ummadda Soomaaliyeed baa tahay dalka halonax dadka ceelasha biyaha ku qaxay halonax dadka madaafiicda maalinta ay ku hoobanayso oo bilaa micnaha u dhimanaya halonax nin walba waqtigu dhimanayo ilaahay baa garanaya laakiin geeridii aad bay u badan tahay aakhiraha la fiiriyo Shariif Xasan Sheekh Aadan aniga runtii aqoon baan u leeyahay Kenya ayaan isla joogi jirnay waxaan ka codsanayaa in oday ahaan
uu u qaato haddii uu arkay in ninkani saaxiibkiisa ahaa ee runta ka yar oo madaxweynaha ah ayan wada shaqayn karin tanaasul ha sameeyo soo fiirinayo ummadda midda kale madaxweynaha asna codsigaas mid la mid ah ayaan u jeedinayaa oon leeyahay madaxweynihii ummaddaad raggii saaxiibada ahaa oo shalay wada shaqayseen oo maxkamadaha ahaa ayaad maanta oo xasan daahir uu iska mid yahay ayaa maaragtay aad kala maqantihiin ninkana markuu madaxweynaha xilkani hayo waa in uu geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaa sidii hadafkii uu leeyahay u gaari lahaa waa in habeenii maalin ugu shaqeeyaa waa inuu habeenkii u dhuntaa ninka saaxiibkiisa warniyo dalkii iyo dadkii waa kari maxaan isku haysanaa waa inuu yiraahdaa marka asaga laftigiisa dib ha isu saxo waayo raggii shalay wada shaqaynayeen oo hadda ay kala tageen kuwa hadda imaanta isla joogaan ay kala tageen hadee khilaaf nin culamo ah oo waxa lagu yaqaan inuu khilaafka baabi'iyo marka diintiisa iyo aqoontiisa ha kaashto waa la is haystaa iyo kan iyo dhagtaanada inay ku soo dhaxdaan dooni mayno waxaan ka codsanayaa labada shariif in ay dalka iyo dadka inta kulay la baaba'ay inta la badbaadin kara waa in la badbaadiyaa ayna sababtooda oo dadkii u sii baabi'in waan maasanta adoo aad iyo aad u mahadsan mudanowgaas gudoomiye shariif sheekh xasan sida la sheegayo waxa uu sharaxan yahay dhawaan doorashada madaxtinimada Soomaaliya oo ay golaha baarlamaanku ay qaban qaabinayaan ma laga yaabaa inuu si fudud madaxweynaha dowladda ku meel gaarka uu ku noqdo maxaad ka dhihi lahayd waxaan ka dhihi lahaa amaba hore aan ugu iri in Shariif Xasan Sheekh Aadan uu tanaasulaad badan sameeyo dalkan maanta dagaal ayuu ku jiraa systemkani Djibouti aan ku soo sameynay ninkan madaxweynaha ah oo hadda joogo saaxiibkiisu ahaa dadkii doortay oo meesha keenay buu kamid ahaa dagaalkiina wuu socdaa oo nimankii xabad ayaa socoto mar hadda kursi la isku qabsado ma taalo haddii Shariif Xasan Sheekh Aadan maanta wanaag uu sameeyo baal dahaba lagu qorayaa shacabka iyo dadka ayaga ayaaba oran doona asoona doorasho iyo diyaar u ahayn ninkaas rabnaa noola keeno inta taa laga gaarayo ma taqaana isqa qabsiga iyo kursigaas soo sharaxi doonaa maxaad soo sharaxdaaba war ninkii saaxiibka ahaa oo gacantaada midigta ah oo magaca naanaysta aad wadaagteen oo maanta kula joogay wuxuu qaban waayay adigu ma qabanaysaa ana ma taqaana dhaqan ahaan aan u dhaxgale waxa Sheekh Shariif Sheekh Axmed looga dhigay madaxweynaha Soomaaliya in uu ka dhashay dadka hadda xamar u badan ama ku dagaalamayo Sheekh Shariif wuxuu keeni waayay adigu ma keenaysaa way anigu waxay la tahay maya adinkoo isfahansan xil waa ka badan yahay booska hadda aad haysaan kugu filan sharafna kugu filan nin ganacsada oo la yaqaan oo macruuf ah ganacsiga adiga dhaqaalaha kugu filan marka xil madaxweyne maanta Shariif Xasan baa rabo yeesan dalkii iyo dadkii u baabi'ine dadka ceelasha biyaha joogay dadka madaafiicda ay ku habsanaysa iyo dadka masaakiinta oo darbiyada jiif haloo naxo iyo kuwa badaha ku dhamaanay sidaan ka warqabno waxa dhawaan wareegto uu soo saaray madaxweynaha dowladda ku meel gaarka Soomaaliya uu xilkii kaga qaaday gudoomiyihii maxkamadda sare dalka sidoo kale waxa xilka qaadistaasi ku tilmaamay mid aanan cadaalad ahayn gudoomiyihii xilka laga qaaday mudane Xuseen Cabdi Cilmi sidoo waragtaa xilka qaadistaasi mudanowgaas wallahi ma santahay markuu horeysa marka xigtaay anigu qodhigay wareegtada iyo daacadda ayaan ka maqlay maalintii ninkan gudoomiyaha maxkamadda sare uu magacaabay 2 bilood ayaa ka soo wareegtay maalinta ayadana habkii uu ku magacaabay waxay ahayd hab sharci ah ninkan asoo safar dibadda ku maqan ayuu magacaabay golihii wasiirada ansixiyay
kulli email baa loo soo diray ninkii dalkii uu ku laabtay haatan hadda qodbadiisa xalay waan dhageysanayay madaxweynaha wareegtun buu iska soo saaro oo leeyahay hadda ninkii meeshaas waan ma taqaana waa ka noqday hadda waxa ila haboon hadda anigoona difaacaynin ama oranaynin hadda sidaas sharciga hore oo madaxweynaha uu ku magacaabay inuu haddana maro oo hadday wax iska bedeleen ama ninkani uu xilkiisa qaban waayay in uu goliyo wasiirada oo ansixiyay shalay iyo baarlamaanka ansixiyay shalay inuu u celiyo waxa sideedaba in sharci loo mara ayaa fiican marka haddii wixii sharcigii loo maro isqa qabsigii iyo aadi way yaraanaysa walow maanta interestkii iyo ay badan yihiin madaxweynuhu kulley ninkani gudoomiyaha maxkamadda aqoon sare isu leeyihiin CV-giisa iyo aqoontiisana dee horey ayuu u qiimeeyey oo sida la socotaanba idaacadaha ama ay ka hadleen rag badan oo madaxweynaha uu ku gacan sayray marka haddii ay wax iska bedeleen waxaa habooneed in uu maro sida sharciga haddana waxaan leeyahay sida sharciga ah iyo wixii khaldamay in la saxo oo khilaaf iyo kala fogaasho iyo waayo saad la socotaanba maxkamadda sare waa hay'adda waddanka u sarreysa waa hay'addii waddanka khilaafkan dhex yaalla iyo waxbaa la kororsaday iyo baarlamaana hay'addii go-aanka ka gaari laheed weeye oo sharciga aheed oo oran laheed waxaan sax waaye iyo waxaan sax ma ah walow aan dareemayo in haddii aad danta aniga aan leeyahay aadan ii samaynin meesha waa kaa ereeyaa walow taas aan dareemayo haddana waxaan ka codsanayaa in uu khilaafka sii fogaanin oo ma aragtay wixii sharciga loo maro oo arrintiina wada shaqayn fiican ay dhacdo sidaan la wada socono waxaa dhawaan la shaaciyay shirkii qaramada midoobay ee Soomaaliya loogu qaban lahaa dalka Kenya magaalada Nairobi oo la sheegay in lagu casuumay dawladda ku meel gaarka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira iyo kooxaha dalka ka jira sidoo oragtaa shirkaasi maxamed waa mahadsan tahay wallahi shirkaasi waxaan u arkayaa beesha caalamka ama qaramada midoobay ama ergeyga gaarka ah hadda xamartigi maalin hore Agostina Mahiga ama qaramada midoobay waan ma celinayna waayo wax badan bay garab istaageen tii Djibouti ha noqoto tii Imbigati ha noqoto systemkii aan dhisanay oo nala garab gasheen oo ma baarlamaan ha noqoto ama dawlad ha noqoto waa uu jira shirarka kale dakhliga iyo dhaqaalaha aad ku UN ay ku bixinayso waxaan ka codsanayaa systemka hadda aan haysan inay ku taageerto oo si daacad ah ay ugu taageerto si dawladda hadafka jira hadafka ay leedahay u gaarto waayo saad la socotiinba bili hadda la soo dhaafay dagaaladii inay dawladda ay guulo waaweyn gaartay oo meelo aysan tagi jirin ay tagtay aad la socotiin waxaan u arkaa tallaabadii dawladda ay qaaday in la curiyaaminayo oo inaad tallaabo qaadaan lama rabin inaad meeshiina joogtaan ay ahayd dadkani waa dad hadda ma taqaanaa hadday xamar qabtaan gobolada tagaya ayaga tashan doono arrimo sidaasaan u arkaa marka hadda la yiraahdo shir kale iyo gogol kale aan idin dhigay wixii dadaalka hadda socdayna in la majaxaabinayo shir arrintaas ayada lagu majaxaabinayo ayaan u arkaa mar kale iyo mar labaad waxaan ka codsanayaa beesha caalamka ama qaramada midoobay baarlamaankii iyo dawladdii aad nala dhisteen oo hadda shaqaynayso aad intiraafsan tihiin garab siiyo aqoonsiga aad siiseen dhaqaale ku siiyo ayaga burcadbadeed ka qabanaya ayaga nimanka wadanka ku soo duulay shabaab la dagaalamaya ayaga dalkii difaacaya ayaga xuduudaha tagaya dhaqaalaha aad ku bixinaysaan hoteelada Nairobi la jiifo dalka u baahan hala siiyo si ciidamadii mishaar iyo dhaqaale ay u helaan sababtoo askarigii asoo mishaar la'aan ma shaqaynayo marka Soomaaliya tan way ka gudbi doontaa wax laga sheekeeyay noqon doontaa hadda UN dawlad ku jirta baan ahayn oo magac leh oo weyn oo la yaqaan oo intiraafsan yahay
diyaana lagu dhaldheelin oo sidii ilmihii kaale ee shimbirayo heesa maalinba hotel yaana la geynine caalamku waxaan ka codsanayaa gaar ahaan gudoomiyaha qaramada midoobay Ban Ki-moon inuu arrintaas iyada ah fiiro gaar ah u yeesho oo Soomaaliya systemka hadda ka jira iyo aqoonsiga hadda ay haysato la sii adkeeyo sidaan horeba u sheegay dawladda hadii la taageero hadda ciidankii guulahay maalin hore ay soo hoyeen iyo guulo kale ay insha Allah soo hoynayaan dalkana dhibkani laguma jiraye nabad iyo barwaaqo ay noo dambeyn doonto UN abaalkaas waan u hayn doonaa dawladaha dariska nala ah sida Djibouti Ethiopia Kenya ayagana maadaama aanu darisnahay Soomaaliya taariikhda waxaan way ka bixi doontaa abaal inoo gala waayo maalin hore waa runtii dad u qaxay dhanka Kenya dhibaatooyin loo geystay idaacadaha waa ka dhageystay marka dhibkani waa laga gudbi doonaa dadka iyo dalka ganacsi iyo walaalnimo ka dhaxaysa taa la adkeeyo oo taariikhda bixi doonto maanta ma taqaanaa ayaan lagu diganin dawladda dariska nahay ee Djibouti ee walaalaha aynu nahay oo haddana doorashada isu diyaarinaysana dawladda dariska nahay ee Djibouti ee walaalaha aynu nahay oo haddana doorashada isu diyaarinaysana doorashada ay u socoto Allah la garab galo abaal weyn baan u haynaa ninka odayga Ismaaciil Umar Geelle runtii abaal weyn baan u haynaa doorashadaana waxaan ka codsanayaa in si cadaalad ah oo sharaf ah u dhacdo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna in waxyaalaha shirkani ama dawladdan ma aragtay hadda xogo dhaqaaqa sameeyay ma jaxaabinaya inay ka fiirsadaan ayaan aniga ka codsanaya mudanugaas su'aashida ugu dambaysa barnaamijkan gaarka ah sideed u aragtaa dawlad goboleedyada meel walba looga dhawaaqo koonfurta Soomaaliya waxaan u arkayaa runtii horta saad la socotaanba Soomaaliya lixdankii markay xornimada qaadatay waqooyi iyo koonfur ay u kala qaadatay British Somaliland iyo Somali Sud ayaan u kala qaadanay saad la socotidba 26 June ayaa walaalahan waqooyi Ingiriiska ay ka qaateen xornimada annagana 1 Luulyo ama 1 July ayaan qaadanay shanta bari oo u dhaxaysay ayaan walaalahan waqooyi ama Somaliland ay keeneen oo midowgii iyo koonfurta suudka calankeeda iyo midowgii ayaa xaflad maalin loo wada sameeyay marka taariikhda in indhaha laga rida maaha in is xastana ma fiicna xasadkana meel lagu ma gaaro waxaan nahay British Somaliland iyo Somali Sud amaba koonfurta Soomaaliya ama waqooyiga Soomaaliya sidaas aan ahayn marka maadaama Somaliland isla markiiba go'aan ay qaadatay markuu dagaalka ahliga dhacay ay go'aan qaadatay ay la baxday Somaliland magaceedii hore ay soo ceshatay in oo Puntland iyo Galmudug iyo xubin xeeb iyo intaas oo laan in ma taqaanaa loo waxeeyo ma jirto waayo hadda Somaliland way ma jirto Burcaland iyo Hargeysaland iyo Berberaland iyo Booramaland ma ka jirto Somaliland iyo Somali Sud ayaan horta wax kala qaybsan marka Somali Sudna wax hadda dhibka uu ka socdo ayada way runtii aniga dadka wada dega oo gobol ama hal gobol degan oo isqadariyo oo ismaamulo oo kala dambeyn sameeysto waan taageerayaa waayo dawladnimada waxay ka asaasantaa gurigay ka asaasantaa marka gurigii hadii laga dhiso waan taageersanahay oo inta isla degan ay sharaf iyo walaalnimo iyo wanaag ay ku wada joogto laakiin laankan oo nin walba caado uu ka dhigtay Somaliland magacaas gumaysiga la oran jiray anagana Somali Sudan la oran jiray marka aanu saaseen marka laankan iyo Somaliland oo leeyahay nimankaaba asaasi laankii la baxeena aanu walba la baxno taa fikirkaas horta meeshaas ka yimid waana fikir qaldan
dalkii la oran jiray aniga hadda kala saari maayo Soomaali Suud amaba koonfurta Soomaaliya dadkii la oran jiray oo hadda dhibaatada ugu badan tahay haba kala darnaadeen waxaan ka codsanayaa inay laalaankaan ay la ordayaan inta iska daayaan oo maaragtay gobolkaasi isaga ah ee baabacay ay wax u qabtaan gobolada hadda nabadda haysto sida Galmudug iyo Puntland inay garab ku siiyaan oo nimankaasi kala oo ama Kismaayo ama Gedo ama Baydhabo ama Banaadir ama Hiiraan nimanka meelahaas colaada ay haysato haday awoodi karaan inay u yeeraan gogol u dhigaan noo yimaada dhahan meesha lagu wada hadlo oo si oday dhaqameed ahaan wax wala qabtaan taa ayada ah inay ka qayb qaataan ayaga oo hal magaca oo Soomaali Suuda ayada ah maamul goboleedyada ah waxaan u arkaa matalanba qola ayaa meel ku badan maamul way sameeyeen magacoodii ay isku magacaabeen dadkii la deganaa ama meesha ka guura ama anagana sheegtay iimaanaysa marka hal isku baabo hal isku dilo ayaa iimaanaysa markaas meeshaan qabiil ka xoog badan ama xoog ku qabsan kara ama xoog ku xoreyn kara ma jirto marka saas la aligeed waxaan laankaan nala ordaya intaas ka dhaaftaan nasiib baad leedihiin oo bad iyo waxaad leedihiin beera iyo xoolaad leedihiin dhulkiina waa qani dawlad hadda caalamka intiraafsan yahayna waad leedihiin dawladiinana la shaqeeyo dalkiina iyo dadkiinana nabadgeliyo laan waxba idin kugu imaanayo mudane ugaas Cabdinaasir Ismaaciil Weydow ugu dambeyntii maxaad kula talin lahayd bahweynta Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool in ay shacabka taagta daran ee abaaraha iyo colaaduhu ay ku habsadeen ay la gaaraan wax walba ay ku taageeri karaan wallahi talahaan waxaan u jeedinayaa markuu horeyso hadda wadankii colaad iyo abaar labadaba wahaysa markuu horeyso caawa waxaan inta ilaahay ugu baryayaa inuu wadankaasi roob khayr qabo inuu ilaahay u keeno waayo dadkii dunyadu way dhamaatay dadkii baa halis ah dadkii baa aad u dhamaanayo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu roob khayr qabo siiyo midda kale waxaan ka codsanayaa dadka dibadda ku nool oo jaariyadaha oo dibadda ku nool oo nolosha haysta in ay dadkaas walaalahooda runtii way taageeraan oo aad taageero weyn bay aad iyo aad ay u fidayaan in ay sii dadaalaan oo ninkii qadayay quraaci casho cuni jiray in uu saddexdii uu mid ama laba uu iska saaro oo dadkaas oonkii biyaha u dhimanayo oo gurma degdeg ah lala gaaro dalkina nin walba oo Soomaali ah shakhsiyad baa ka saaran xil baa ka saaran wanaaga ha ka shaqeeyo kii walaalkiisa oo khaldanna ha u aqli celiyo ha yiraahdo war heedhe 20 inta sano nagu sii socotay ma dal iyo maanta aan u laabana male oo ma aragtay qurbihii intaan joognaa qabow iyo baraf nagu dhacayay holiday la aad male ilmihii inta waa ku saaqadeen meel loo dhaqan celiya male dal iyo malihin dad malihin niyahow war dalkaada iyo dadkaada wax u qabo arinta ayada fikirka meeshaasi laga gaarsiiyo dadka dibadda ku noolna waxaan ka codsanayaa mar kale in ay dadkii taageerada ay u fidayaan si laba laabaan nin walba oo Soomaali oo caaqil ama garaada rag iyo dumar ah in dawladda haatan jirta lala shaqeeyo la taageero haday xun tahay oo ka gudubna caqabadani oo kumeel gaarka aan ka gudubno oo nabad dalka way tagaysaa wixii xun ma raagaan laakiin systemka hadda aan haysano hala taageero hala garab galo dadka dhibaataysan ee abaaraha iyo oonka iyo rafaadka u dhamaanayana hala taageero Soomaali meel kastana way joogtaan waan u duceynayaa ilaahay dambigaana iyo dambigaadkana dhaafo ilaahay wadankii abaar tahay sahay naga qaado ilaahay coolka haya naga qaado ilaahay qalbiga ayaga Allah isku soo dumo bogaanaga burcada Allah isu mariyo markale aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa baahda saxaafadda washaaqa oo caawa Nottingham waraysi dheer ay wala yeelatay wada shaqeyn wacan arinkana sida aad wanaagaas aad u gudbinaysaan aad u gaarsiinaysaan dadka walaaleena inta af Soomaaliga ku hadasha aad baan idinkaga hambalyeynaya
guuleysta Soomaalina ha guuleysato waana maasanta mar kale aad iyo aad ayaad u mahadsantahay ugaas cabdinaasir ismaaciil weydow oo maanta barnaamijkeena gaarka ah marti noogu ahaa dhageystayaal waxaa intaa inoogu eg barnaamijkeenii gaarka ah